waxaan wanaagsan daawadayaal idilkeen meel kastoo ay joogtaan soo dhawaada wararka laga helayo gobolka Awdal iyo gobolka Salal ayaa waxa ay tilmaamayaan in goordhow tuulada Xariirad ay xoog ku soo galeen ciidamo hubeysan oo ka tirsan beesha Ciise rasaas dhinac walba u dhacaysa ayaana halkaas laga maqlayaa xogtan helina waxay tilmaamaysaa in afar jiho oo kala duwan magaalada laga soo weeraray isla markaana dagaalo foolka foola ay socdaan laba xubnood oo ka tirsan militariga Somaliland ayaa warbaahinta u sheegay inay og yihiin xog walba oo ku saabsan in xaaladdu ay hadda gaartay meeshii ugu sareysay iyadoo oo xogta la helay ay tilmaamayso in marka ka dambeeya laga cabsi qabo inay dagaalo foolka foola halkaas ka dhacaan markaad eegtid siday wax ku socdeen bilow ilaa dhamaad xaaladdu waxay ku tusinaysaa in xaaladda marka ay marayso meel aad halis oo waxba laga qaban oo xaaladda aan dhahe Xariirad ay marayso meel aan waxba laga qaban karin xuduudda Xariirad iyo Gaarisana dhowrkii bil ee la soo dhaafay siyaabo kala duwan ay dagaal uga dhaceen markii koowaad iyo markii labaad maaha asbuuci la soo dhaafay 3 jeer oo kala duwan ay dagaal ka dhaceen sidaas si lamid ah hadda toddobaadidii la soo dhaafay sidaas oo kala dagaal ka dhacay xaqiiqada markii la abaarana dad badan waxay aaminsan yihiin in Xariirad wixii ka dhacay tuulada Gaarisa ay si isku mid ah ciidanka Somaliland u geysteen godofallo ka dhanna rayidka aan hubeysnayn Ciise waxay dhowr mar oo kala duwan sheegeen inay dagaal ku qaadi doonaan Gaarisa way dhacday Xariirad sidaas si lamid ah waxaad moodaa marka dagaalkii hore ugu dhaxeeyay Ciise iyo Samaroonka inuu hadda u dagaal rogtay dhinaca nimanka la yiraahdo Somaliland hadda waxa toos u dagaalamaya waa ciidanka Ciisaha iyo kuwa Somaliland dhowr mar oo kala duwan bay dhacday wixii koowaad iyo wixii labaadna ma ahan waxayna dad badan oo khubara oo arrimahan la socdaahi leeyihiin hadii aan hadda la helin xal degdeg ah waxay u badan tahay inay xaaladdu faraha ka bixi doonto oo la arki doono wax ka xanuun badan wixii hore u dhacay waxaa jirtay sidaas si lamid ah in toddobaadkii la soo dhaafay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro uu wufuud u diray magaalada la yiraahdo Gaarisa oo Ciise ay degan yihiin sidaas si lamid ah magaalada la yiraahdo Xariiradna uu wafdi u diray waxaad samoodaa wafdiyadii kala duwanaa ee halka loo diray in ay waxba ka soo qaban waayeen xaaladda isla markaana ay gaarsiiyeen meel aan waxba laga qaban karin Gaarisa wixii ka dhacay 2 toddobaad ka hor ciidanka Somaliland ayaa toos u tooganayay dad rayida dadka rayidka ah ee la toogtay la waxyeeleeyay inta badan waxay ahaayeen dad barmigeeda ah oo waxba galabsan dad inta badan aan hubeysnayn dad inta badan aan weligood dagaalamin laakiin ciidanka Somaliland waxaad moodaa inaysan taa dhag jalaq u siinin oo ay adeegsanayeen awood ka baxsan awoodihii sharciga iyo nidaamka iyo qawaaniintu u siiyay hadda weerarka ay soo qaadeen nimankan Ciise la yiraahdo ee Xariirad lagu qaaday waxa ka horeeyay weerar sidaas si lamid ah Ciisuhu ay qaadeen oo lagu qaaday tuulada la yiraahdo Gaarisa iyo Xariiradna dabcan 30 kiiloomitir bay isku jiraan midna gobolka Salal bay xigtaa midna gobolka Awdal bay xigtaa Xariirad baa gobolka Awdal xigtaa Gaarisana gobolka Salal bay xigtaa Cabdiraxmaan Ciro rag saraakiil oo dhawaan uu la shiray wuxuu u sheegay in uusan yeeli doonin qulqulitooyinka tirabeelka ah ee magaalada ku sii qulqulaya isagoo gacan bir ah sheegay in lagu qaban doono cid walba oo loo arko inay Somaliland caqabad ku tahay xasiloonidooda wuxuu sheegay inaan laga yeeli doonin cidna in Somaliland ay hadda u horseedaan dhibaato iyo qalalaase aan loo joogin isagoo Cabdiraxmaan Ciro markaa uu sheegay nimcaan Gaxnuug iyo rag oo la kulmay in loo baahan yahay in la qaado talaabooyin dheeraad ah ama talaabooyin degdeg ah koor intaan talaabooyinka la qaadina wuxuu sheegay in dhibaato walba oo ka dhalata qulqultooyinka halka ka taagan ay dhabarka u ridan doonaan isla markaana eedaasi ay qaadan doonaan mas'uuliyiinta Somaliland oo ku eedeeyay in ay ka gaabiyeen in xal degdeg ah u keenaan arrimihii ka taagnaa gobolka si walbaba ha ahaatee dad badan oo arrimaha la socda ayaa waxa ay sheegeen in ay xaaladdu hadda marayso meel aad u adag isla markaana ay gaartay meel aan waxba laga qaban karin dhowr mar oo kala duwan ayaa maamulka Somaliland waxa lagu eedeeyay ku lug lahaanshaha ficillo ka dhan ah rayidka oo ay siyaabo kala duwan u geysteen walow mar walba Somaliland warkaasi ay beeniso haddana xuduudda gobolka Salal gobolka Awdal waxaad moodaa in qulqulatooyin horle ay ka soo ifbaxeen kuwaas oo aan loogeen xaaladda halka ay gaarsiin doonaan isla markaana meesha ay xaaladdu ku dambeyn doonto
haddiise dad badan siday aaminsan yihiin la helo xal degdega isla markaana xiisadda si degdega loo soo afjaro waa sidii la rabay laakiin odayaashii dhaqanka ee daraadaan idinla wadaaga in xariirad lagu xidhay iyo kuwa hadda la soo warinaya inay xariirad ku xidhan yihiinba waxaa la ii sheegay in ay xaaladda Somaliland ka sii darayso isla markaana ay gaarsiinayso meel aan waxba laga qaban karin oo ah in gacmaha la iskula tago markana muuqaalkan ila daawado. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاو كان waxaan ku qabanaynaa shir saxaafadeed anagoo joogna galbeedka Somaliland magaalada Yeerisa tirsan gobolka Awdal wafdi ballaaran baan halkan kaga baxnay oo ka kooban wasiiro iyo guurtidii Somaliland sidaa ogtihiinba waxaanu hore u soo dhamaynay shaqaaqadii ka dhacday galbeedka Somaliland ee dhex martay dadka walaalaha ah ee gobolada Awdal iyo Selel nabadda markay xukuumaddu xidhay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wuxuu amray in gogol nabadeed la dhigo gogoshaasi waxaan isku raacnay inay noqoto Gaarisa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waftigan ballaaran ee la socday midigta waxay iga xiga taliye ku-xigeenka labaad ee ciidamada Booliiska taliye ku-xigeenka koowaad ee ciidamada Booliiska wasiir ku-xigeenka dastuurka wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo barasaabada gobolada Saaxil iyo Selel iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal iyo dhammaan warbaahinta Somaliland waxaanu jecelahay halkan inaanu maanta caawa ka iclaamino markii aanu eegnay gogoshii inay diyaar tahay ay xukuumaddu diyaar garaysay inay sidii loogu talagalay tahay inaan caawa ku dhawaaqo gogashaasi in la furayo maalinta Isniinta marka dadkii loogu talagalay beelahaas waxaan jecelahay inay beri soo wada dhammaadaan si shirku u furmo maalinta Isniinta haddii aan la yidhaahdo iclaamkaasi waxaan jecel inuu wada gaadho beri la soo wada dhammaado maalinta Isniintana shirkaa nabadeed oo hogaaminaysa golaha guurtidu xukuumadduna ay korjooga ka tahay nabadiisa iyo habsocodkiisa wuxuu furmayaa insha Allah maalinta Isniinta intaasaan caawa doon iclaamkeena gaarsiiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi